أينما كنا أينما صرنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله. jannooyinka ilaahay waxaa ugu weyn, ugu qurux badan, ugu nuur badan, ugu iftiin badan jannatu lfirdows alaclaa. 7 sifo qofkii laga helo jannadaasi uu helaya. miyaad doonay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebi nuux iyo ambiyaadii ilaahay inaad jaar la noqotid? miyaad doonayn carshigii ilaahay inuu korkaaga u yahay oo saqafka firdows alaclaa jannada saqafkeegu waa carshigii ilaahay? waa jannada ugu saraysa, waa jannada ugu weyn, waa jannada webiyaasha 4 webi ay ka soo burqadaan firdowsa. waa janno aad iyo aad u weyn. waxaa lagu galaa 7 sifo. haddaad doonaysid inaad noqotid kuwa jannadaasi dhexlaya ahlu firdowsa, 7 sifo ku dadaal. ilaahay baa inoo sheegay 7 sifo. waa 7 sifo oo u baahan 7 astaamo, 7 calaamadood oo la rabo inaad gowska dambe aad ku qadintid. nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam, faidaa sa'altum allaha fas'aluuhu lfirdows. war ilaahay haddaad wax weydiisanaysaan wax weyn weydiista, jannatu lfirdowsa ilaahay weydiista. maxaa ka weyn firdowsa? jannada firdows la yidhaahdo maxaa ka weyn? nebigu waxa uu yidhi waa jannada ta bartankeyga ah, waa ta ugu saraysa, waa ta webiyaashu ay ka soo burqadaan. jannadaasi ilaahay weydiista buu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam. maxaa lagu gelayaa? 7 sifo ayaa lagu gelayaa. sifada koobaad ilaahay baa ka warramaya. ilaahay waxa uu yidhi qad aflaxa almu'minuun. waxaa liibaanay, waxaa guulaystay, waxaa badbaaday oo aakhiro badbaaday oo meeshii ugu fiicnaa galay dadka mu'miniinta ah. waa kuwee rabbiga kuwaasi, kuwaa guulaystay, liibaanay. wa'ayo rabbiyow? ilaahay waxau leeyahay aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. waa kuwa salaadooda ku khushuuca, khushuuc laga helo. khushuucdu waa maxay? qalbigu ka yimaadaa khushuucdu. caliy bni abi aalib radia allahu canhu waxa uu yidhi alkhushuucu khushuucu qalb. qalbiga ayaa khushuuca. aayaadkaa qur'aanku akhriyayo ayuu firfirsanayaa. ilaahay uu hor taagan yahay ayuu weynidiisa iyo cadamadiisa ayuu is hor keenayaa. kadibna salaadaasi uu dhandhaminayaa macaankeyga. imaamkii alxasan albasri waxa uu yidhi kaana khushuucuhum fii quluubihim. khushuucdoodu waxay ahayd qalbigay ka imanaysa. qofku inuu isduuduubo jidhka uu adkeeyo oo qalbiga inuu ka maqan yahay ma aha. salaadan qalbiga markuu qofku uu ka khushuuco, jidhka intiisa kale way khushuucayaan. sidaasay ahayd salaaduu nebigu lahaa wajucilat quratu cayni fi salaa. meeshaan indhaha ku qaboojisto, meeshaan ku nasto, salaada ayaa laga dhigay buu lahaa nebigu calayhi الsalaatu wassalaam. waxau yidhi ibnuqayim salaatun bilaa khushuuc walaa xuduur. salaad qofku uuna taagnaynoo qalbigiisa uuna soo joojinaynoo khushuucayn waxay la mid tahay sidii qofku siiyey oo kale, qof mayda ku siiyey oo kale. qof mayda maxaad ka dhigi? qofka ilaahay u hadaynaya salaad bilaa khushuuca waa sidii qof ilaahay u hadaynaya qof mayda oo dhintay oo kale. salaada khushuucdu
waxay ka dhigtaa salaadda ruux baa u yeeshaa, macnee u yeeshaa, qiimee u yeeshaa, dhandhan gaara ayaa u yeeshaa. taasi waa ta koobaad aad ku helisid darajada sare. qofkuna wuxuu sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam, waina arajula layansarifu wamaa kutiba lahu ilaa cushru salaatih. qof baa salaad tukanaya, salaaddiisa 10kiiba hal baa loo qorayaa, aaway 9kii kale muu joogin, wuu maqnaa. kolba intaad joogtid baa lagu qorayaa, intaad xaadir tahay oo qalbigaagu uu xaadir yahay ayaa lagu qorayaa. taasi waa ta koobaad, salaad khushuuc leh, ilaahay weynidiisa ay sor keenaysid ood ku raaxaysanaysid. ka labaad, sifada labaad, astaanta labaad, ilaahay waxa uu yidhi waaladiina hum cani allagwi mucriduun. waa kuwa baatilka ka jeesta, waa kuwa xumaanta iskaga jeesta, shirkiga, gaalnimada, macaasida, wixii aan faa'iido lahayn, qowl iyo ficil midna aan faa'iido ku lahayn, waa kuwa iska diida ee iskaga taga. waa kuwaasuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam. wuxuu ku tilmaamay in dadka mu'miniinta ay yihiin dad xumaanta ka fogaada, wixii aan faa'iido lahayn ayay iskaga fogaadaan. waaladiina hum cani allagwi mucriduun, wixii lagwiya way ka jeesanayaan. ta saddexaad, waaladiina hum lizakaati faaciluun, zakada ayay gutaan, zakada maalka way gutaan, naftoodana way taskiyadeeyaanoo way tahiraanoo dunuubta ayay ka maydhaan. idan axibatii fi اllaah, waa shardiga, waa sifada saddexaad. ta afaraad, waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun, waa kuwa farjigooga cawradooda xafida, ilaa calىa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fainahum hayru maluumiin. haweenkiisa mooyaane waxaa kale uu ka ilaaliyaa, farjigiisa ayuu xafidaa, xaaraantu ka ilaaliyaa. kaasina wuxuu ku jiraa dadkaasi guulaysanaya. ta shanaad, ilaahay waxau ihi waaladiina hum liamaanaatihim, ammaanadooda iyo wa cahdihim iyo ballankooga raacuuna way ilaaliyaan. ammaanadii loo dhiibtay way gutaan, sideeday u gutaan, ma khaayinaan. hadal haddaad ku aamintid, sir haddaad ku aamintid, xoolo haddaad ku aamintid, waaddu lamaanaati ilaa ahliha. dadkii lahaa ammaanadeeda waa u xafidaan, way u ilaaliyaan, kama dayacaan. iyo cahdigooga, ballankooga. waa tii lixaad, ballantuna qofka muslimka uu ballantiisa u ilaaliyaa. calaamaadka munaafiqa wuxuu lagu tilmaamay inuu ballanta una ilaalin. laakiin qofka sifaadka lagu gaadhayo jannatu lfirdows alaclaa waxa weeyaan cahdiga, ballanta ayay ilaaliyaan buu ilaahay yidhi. cahdiga waa culus yahay. in maanta la yidhaahdo muslimku ballan male waa wax aad iyo aad u farxun. ta toddobaad ee ugu dambaysa, ilaahay mar kale ayuu ku soo celinayaa waaladiina hum calىa salaatihim yuxaafiduun, salaadooda ilaaliyaan. waxaa lagu bilaabay salaadda way ku khushuucaan, waxaa lagu dambaysiiyey salaadooda way ilaaliyaan, wakhtigeeday ilaaliyaan, khushuucdeeday ilaaliyaan, arkaanteeda iyo shuruuddeeda iyo wax alla wixii laga rabo oo dhan ayay ilaaliyaan. salaaddu ahmiyaddaas ayay leedahay. abaalgud maxay leeyihiin dadka toddobadaa sifo laga helay? ilaahay wuxuu ulaa'ika hum alwaarihuun, kuwaasi u weeyaan ku dhexlayaan. xaggay dhexlayaan? aladiina yarihuuna alfirdowsa alaclaa, firdowsa, jannadaa firdowsa kuwa dhexlaya buu ilaahay leeyahay. waa kuwaasi bes, kuwaasaa ku guulaystay. kuwaasi meesha waa la ordaya. aladiina yarihuuna alfirdowsa hum fiihaa khaaliduun, kuwaasaa firdowsa ku waaraya buu ilaahay yidhi. kuwaasaa helay. waasaabiquuna asaabiquun ulaa'ika almuqarabuun, kuwaa weeyaan kuwii la soo dhoweeyey, kuwii gaarka ahaa waa kuwa, kuwii guusha ku guulaystay. adduunkan waa la tartamayaa, janna loo tartamayaa, aakhiro
janna loo tartamaya kuwa guulaystay ee kuubka qaaday, koobka qaaday, darajada sare gaadhay waa ambiyaadii iyo shuhadaadii iyo saalixiintii iyo dad badan oo ilaahay u raaciyey. kuwan 7 sifo laga helay ayaa ka mida. ulaa'ika hum alwaariثuun aladiina yariثuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun. jannadaasi ayay ku waarayaan, waa guul ay ku guulaysteen. jannadaasi axibatii fi اllaah waa meeshaasi qaaliga ah. nebigu waxa uu yidhi alaa ina silcata allaahi haaliya, war ilaahay waxaan uu iibinayo, silcadan ilaahay uu iibinayo, xamaantan ilaahay iibinayo, jannadan ilaahay uu iibinayo waa qaali buu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wassalaam. maxaad u malayn markay jannaduna ay noqoto jannooyinka jannada ugu weyn, ugu fadliga badan, ugu khayrka badan, ugu nuurka badan, ugu sharafta badan, ugu saraysa markay noqoto, maxaad u malayn ee carshigii ilaahay ayaa saqaf u ah kuwaasi. maxaad u malayn markaasi? axibatii fi اllaah, ilaahay waxa uu leeyahay ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat kaanat lahum jannaatu اlfirdowsi nuzula khaalidiina fiiha laa yabguuna canha xiwala. kuwaa firdowso galay ma doonayaan meel kale ay u wareegaan. khayr oo dhan bay heleen, guul oo dhan bay heleen, wanaag oo dhan bay heleen. meel kale in ay ku doorsadaan ma doonayaan. carshigii ilaahay ayaa korkooga ah, jannooyinkii oo dhan baa ka hooseeya. waxay ku jiraan nicmad iyo khayr iyo fadli. webiyaasha oo dhan ayaa ka soo baxaya meesha. maxaa ka qurux badan inaad nebi maxamed aragtid, nebi ibraahim aragtid, nebi nuux aragtid, nebi muuse la sheekaysatid. maxaa ka fiican oo ka wanaagsan inuu ilaahay meeshaasi uu ina geeyo. 7 sifo inaan ku dadaalno. أينما صرنا